Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nabaday ku soo dhawaada daawadayaal warkii caawa halka ay ga dhagaysanaysaan waa Joogdhowr Media. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe Axmed Maxamed Islaam ayaa waxa uu soo doortay baarlamaankii dowlad goboleedkiisa Jubbaland halkaas oo in muddo ah khilaaf kala dhexeeyay dowladda dhexe oo iyadu lahayd doorasho qof iyo cod ayaa wadanka loo qabanaya halka isaguna uu u arkayay inaanay taasi suurtagal ahayn isla markaana maanta waxa uu soo xushay baarlamaankii oo uu ku dhaariyay isla maantana hawsha uu dhameeyay dhanka kale ra'iisul wasaaraha ayaa aad isaguna waxa uu uga xumaa arrimaha isagoo madal uu hadalka jeedinayay laga dheehan karo ra'iisul wasaaraha oo aad uga xun kuna tilmaamay in ay Jubbaland u afduuban tahay Axmed Madoobe ayaa waxa uu ra'iisul wasaaruhu ma ka yeeli doono inuu Axmed Madoobe afduubo wixiiba waa la isla soo dhaafo isla maanta ayay munaasabadii qabtay iyo dhaarintii wixiiba balan aragno si munaasabadaas u dhacday 19 xildhibaan ee beesha sada ee ay soo xuleen odayaasha nabadoonnada ayaan ku wareejiyey guddiga doorashada sidaas aad ogaanaysaan xilkaas waa iga wareegay doorashadana si xurmad leh bay ku dhici doontaa ilaahay baa mahad leh anigoo ah ugaas xuseen ugaas maxamuud ugaas qorane ugaas yuusuf ahna ugaaska guud ee beesha cawliyahan waxaan wareejiyey xubnihii xildhibaanada cawliyahan ee ay ii soo gudbiyeen beelihii cawliyahan ee ii soo gudbiyeen ayaan ku wareejiyey guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ayaan ku wareejiyey Jubbaland wabilaahi tawfiiq anigoo ah ugaas xuseen ugaas ismaan nuur xildhibaankii beesha ay soo xulatay oo magaciisu yahay cabdiraxmaan maxamed kilaas jaara waxaan ku wareejiyey guddiga doorashada maanta si waafaqsan qaanuunka u degsan Jubbaland iyo guddigeeda doorashada yaan ugu wareejiyey hadalla iskale halkani waxaan ugu imid guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha dowlad goboleedka Jubbaland waxaan ku wareejiyey xubnihii baarlamaanka ku matali lahaa jifada Soomaaliyeed kuumada maqaabul ayaan ku wareejiyey guddiga kaasoo ay soo gudbiyeen waxgaradka iyo uqaasha beesha aan ku matalo hoggaanka dhaqanka magacayga waa Suldaan Xasan Suldaan Maxamuud maanta waxaan u imid inaan ku wareejiyo xildhibaankii ay beeshayda soo dooratay guddiga doorashada iyo xuduudaha magaciisuna waxa weeye xildhibaan Maxamed Cabdulqaadir Cali anigoo oo Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cali Shukor waxaan wareejinayaa kuraasi beeshayda ku matalaysay Jubbaland oo haduusan alle guudi waa suldaanka guud oo waamo ku wareejinaya guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha Jubbaland waxaan halkan maanta aan ku soo gudbiyey anigoo ah ugaaska beesha macalin weyne labada kursi ee beesha ku lahayd Jubbaland labada xildhibaan anigana maanta waxaan ku wareejiyey guddiga xuduudooyinka doorashada Jubbaland ayaan ku wareejiyey waxaan leeyahay hambalyo dirisha kwa serikali ya Jubbaland na guddi ya Jubbaland na umisil beesha yetu wote abajuba maanta olkii waxaa isugu yimid doorashada waxaan ku wareejiyey guddiga doorashada iyo xuduudaha madaxa bannaan xildhibaanka beesha sheekhaal reew qudub anoo ah suldaanka beesha qudub Maxamed Cusmaan Yuusuf waxaan ku wareejiyey xildhibaan Cabdiraxmaan Cashir Maxamuud oo inuu ka mid noqdo xildhibaanada hadda la soo xulay ee Jubbaland aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa guddiga doorashada iyo xuduudaha aad baan uga mahadcelinayaa billahi tawfiiq anoo ahaa malaaq Cabdiqaadir Maday Ibrahim malaaq beela geeradle way cadaayay in xildhibaanka shanta sano soo socoto nimitri doono baarlamaanka golaha shacabka Jubbaland in geedka guddiga doorashooyinka aan iska wareejiyo anigoo ah Suldaan Maxamuud Suldaan Haaruun Xaaji Qamiis waxaan matilayaa beesha Shambara ee Jareerweyne waxaan xildhibaankayga
aan ku wareejinayo guddiga doorashada beeshayda ninkaas oo mateli doono 5 sano soo socoto waxaana ku wareejiyaa hadda guddiga doorashada insha Allah nabadoon Nuuri Shariif Cabdullaahi nabadoonka beesha Ashraafeed waxaan maanta guddiga doorashada aan u gudbiyey xildhibaankayga igu mateli doona ama ku mateli doona beesha golaha wakiilada dowladda Jubbaland kaasoo ii soo gudbiyeen waxgaradka iyo oqaalada beesha Ashraafeed tashi dheer kadib aan isku soo raacnay inuu noo matalo waxaana u rajaynayaa guul iyo maaragtay inuu ku ilaahay xilka ku asturo dhammaan horta waxaan salaamaa guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha dowlad goboleedka Jubbaland qaabka doorashada ay u socotana ay aad wanaagsan tahay waxaan soo gudbiyey xildhibaan Cabdi Baali Xuseen oo ay ugu soo wareejiyeen beesha isaga matalaada uu ku lahay aniga ay ugu soo wareejiyeen oo Suldaan Ibraahim Cali Qayley waxaan ku wareejiyey guddiga doorashooyinka anagoo ah suldaanka beesha Sheekha loo bagay waxaan guddiga doorashada iyo xuduudaha Jubbaland ku wareejiyey 2 xildhibaan oo kala ah Abshir Mukhtaar Axmed iyo Cabdirasaaq Maxamed Cali labadaas xildhibaan aan ku wareejiyey waa xildhibaanaha Jubbaland oo cusub haddaan ku wareejiyey suldaanka beesha Sheekha loo bagay anagoo ah intaas waxaan rabaa in laga gudoomo Rashid Ibrahim Wasali oo kiilka waaska beesha guud oo garra waas guud beesha garra maxaan ku raada waxaan halka ku wareejinayaa 2 xildhibaan maxaan ku raada beesha ay ku lahayd Jubbaland ayaa halka maxaan ku raada guddiga doorashada ayaa ku wareejinayaa marka insha Allah marka labadaas qof aan wareejiyey waxaan halkan keenay oo guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ku wareejiyey xildhibaankii beesha aan soo xuray Ismaaciil Cabdi Keero halkan u imid inaan ku wareejiyo xildhibaankeygii guddiga doorashada beesha Mashangul xildhibaankuna waa Salaad Cumar Mugaanga Suldaan Xasan Cali Nuur suldaanka guud ee beesha Darisame waxaan halkan u imid inaan wareejiyo xildhibaanka beesha ku matala kursiga doorashooyinka Jubbaland xildhibaan Khadiija Axmed Ibraahim oo ay ii soo gudbiyeen waxgaradka beesha dhinaca kale Somaliland doorashooyinkii baryahan dambe loo dhag taagay oo ku guuleystay xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciro ayaa waxa weeyaan doorashadii xisbiyada ayaa iyaguna waxay la soo baxeen lama arag iyo dhagay far halkaasoo hal beel ay ku soo wada baxday saddexdii xisbiba waxa weeye xisbiga kulmiye oo Maxamed Axmed Kaahin uu ku soo baxay iyo xisbiga wadani oo Xirsi Xaaji Cali joogo iyo xisbiga Hillaa oo uu ka haban u jeedaa oo ku soo baxay Maxamuud Xaashi taasoo noqotay wax aad iyo aad loola fajaco awalna waxa dadku ay beelaha darafyada Isaaq ay ku xaman jireen saddexda xisbiba Isaaq ayaa jooga isla markaasna maantana waa ka daro dibidal dowladii dhameed waxay noqotay dowlad habar jecel halka gudoomiyaha guurtidu Salabaan gaal uu yahay waxa weeyaan nin habar jecel sidoo kale gudoomiyaha komishiku uu yahay nin habar jecel taliyaha ciidanka sirdoonku uu yahay nin habar jecel xisbiga wadani uu yahay nin habar jecel xisbiga kulmiye uu sidoo kale yahay nin habar jecel xisbiga waxa weeyaan marka waxa noqonaysa habar jecel laan loo bixiyo baashi waxay noqotay dhamaanteed habar jecel balbeelay kale marka maxaa soo haray halkaasoo dadku guux badan ka jiro qaarkood leey waranagu Soomaaliya ku darsanaynaaba wali iyo warka xigeenteenu isugu iman doono dhamaantiin daawadayaal waxaad leeyahay idinkoo nabada iyo anagoo nabada aad iyo aad baan idin salaamaya barnaamijka subscribe-ta iyo like-ta iyo share-ta ku qabta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.